kulanti waxaan wanaagsan saaxiibayaal idin ahaantiin meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka garsoorka fanka هيا نظيفة حجو شرمك حجة كتير حيسا فنكيو حلشة فنانكيو حدقي سندكيو حريك جيد كدعايو حفلتك وانكي هلاي حقين أورد سدا أوركو حرمان نظيفو أنا هاي حكتاسي حقيقة شرمارك هو حاشايا بالسودان برنامج حخصور ولا قد ورا حقيراد وفنكو كحفالتما SMTV بوحلقن حرق جيدكو كسعودايا شرمارك حفله هور فريسو فناولي بحرفدي عوديو حرق لي سوغان ولي بحرف كيت حجمي مرتدى يا حتى إيو عد حريران يا حرفدي هو حدك نقون كرا برنامج قرصورك فنكا وبرنامج دوانك بحدونا التلفزيون كقرن كصوماليا وحنا لغو سو خولي دونا الدقة هي حدك تفنكا برنامج قرصورك فنكا barnaamijka garsoorka fanka waa barnaamij aad u xiiso badan oo ah barnaamij faneed oo aan ugu talagalnay in aan ku kala saarno fanaaniinta da'da yar ee fankooda aadka loo xiiseeyo waxaana ujeedkeenu uu yahay in aan soo saarno xidiga iyo xidiga fanka annagoo isla markaana tartansiinayna ilaa iyo 32 fanaan toddobaadkii hore iyo kii kasii horeeyaba waxaan tartansiinay 8 fanaan oo waxa soo baxay toddobaadkii hore laba ka mid ah toddobaadkana waxaan idin wadnaa laba kale oo toddobaadkan iyaguna soo baxay ayaanu idin wadnaa barnaamijka alaab wuxuu idin kaga imaadaa stuudiyaha dalka Finland oo ku leeyahay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed nadiifa si ay wax badan uga ogaadaan daawadayaasha barnaamijka ku taxan aan xasuusino toddobaadkii hore afartii fanaan aan tartansiinay toddobaadkii hore daawadayaal waxaanu tartansiinay fanaaniinta kala ah Faysal Hawaase iyo waliba Cabdiwahaab Booska iyo isla markaa dhankii gabdhaha haddii aan aniga dhankayga fiiriyo fanaanada qaaliladan iyo waliba fanaanada kale ee da'da yar ee Saacadiya Siman toddobaadkii hore barnaamijka waxa uu ahaa mid xiiso gaar leh dadkuna si aad ah ay taageerayaasha ugu codeeyeen inagoo gadaal idinkaga sheegi doona natiijada toddobaadka ay kala heleen fanaaniintii tartamaysay balse marka hore aynu ku bilowno heestii ugu horeysay barnaamijkeena soo qabanayna nadiifo inta aan barnaamijka heesta ugu horeysa soo qabanin waxaa aad iyo aad aan daawadayaasha barnaamijka u sheegana afarta fanaan ee toddobaadkan aan tartansiinayno yaa inoo soo xushay toddobaadkan waxaanu idin soo xulnay daawadayaal fanaaniin qaali ah inagoo soo qaadanay fanaaniinta kale ah Axmed Saki iyo waliba waxaanu soo qaadanay Laki Xaaji Wacays Faadumiin iyo waliba dayaxdal nurshe waxaana tartami doona fanaanka dayaxdal nurshe wuxuuna la tartami doona fanaanka kale ee Axmed Zaki sidoo kalena Laki Xaaji waxa ay la tartami doontaa toddobaadkan Faadumiina waa fanaaniina kala dhicin waxaad moodaa toddobaadka ka dambeeya in barnaamijka aad u xiiso u soo yeelanaya daawadayaashana ay la qabsanayaan balse heesta ugu horeysa iyo nadiifa heesta ugu horeysa barnaamijka aynu soo xulanayno toddobaadkan waxa ay tahay heestii kooli iyo waliba codkii macaan ee Axmed Saki heestaas oo dadweynaha ay si aad ah ay u jecel yihiin daawasho kalgacali waraabisay kashkiila taydiye kolkolisay kalgacali waraabisay kashkiila taydiye adan kunka ku jeclay qalbiga kelibaad ku tahay كرمكو هيا هيو كركدي سارتاي كرمكو هيا هيو كركدي سارتاي أذان كونكا كوتشلاي قلبي كلمات كنتاي كرمكو هيا هيو كركدي سارتاي كرم
ku ayahayo korkay saarantahay 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 miyirka lagu kaadsaday wadnaha kala wada jirkay laxaadada lagu kaciyo lafta dhabarkiyo kubkay miyirka lagu kaadsaday wadnaha kala wada jirkay laxaadada lagu kaciyo lafta dhabarkiyo kubkay ikolkolkolisay kalgacali waraabisay kashkiya laabtaydiye kolkolkolisay kalgacali waraabisay kashkiya laabtaydiye adaan koonka ku jeclahay jeclahay qalbiga kelibahaad ku tahay ku tahay kaaramanku ayahayo korkay saarantahay kaaramanku ayahayo korkay saarantahay adaan koonka ku jeclahay jeclahay qalbiga kelibahaad ku tahay ku tahay kaaramanku ayahayo korkay saarantahay kaaramanku ayahayo korkay saarantahay adaan koonka ku jeclahay jeclahay qalbiga kelibahaad ku tahay ku tahay kaaramanku ayahayo korkay saarantahay kaaramanku ayahayo korkay saarantahay 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 koonka ku jeclahay jeclahay qalbiga keliba aad ku tahay ku tahay karamanku hayaa korkaad ii saaran tahay fanaanka axmed zaki ayaan barnaamijka ku daafuranay maadaama uu ka mid yahay afarta fanaan ee toddobaadkan tartamaysa haddaba taageerayaal fanaanka aad taageertaan u codeeyaha oo codkiina siiya waxaad nooga codeysaan halkan shaashada ka muuqata nadiifay heeska axmed zaki aan dib uga soo laabano alla ilaa hees aada u macaan ayuu ahaa waan filayaa inay daawadayaasha si aadaha ay uga wada heleen nadiifa barnaamijka garsoorka fanka dad badan baa aada ula socda ay fanaaniin ka mid yihiin fanaaniin badan ayaa nala soo xiriira qaarkood baa baraha bulshada inta kaala soo hadlaa ama caada kuu soo wacan ee barnaamijka aada u xiiseynayaan weliba waxaa jira fanaaniin kale qaarkood aan ka mid ahayn 32 fanaan ee aan tartansiinay oo ku dhahay maxaana looga reebay ujeedka barnaamijka ka reebitaan ma ahayn ee wuxuu ahaa 32 fanaan oo aan baqtiyo nasiib inta sameynay kusoo xulanay toddobaadkan kan ku xiga kan ku sii xiga sanadka markuu dhamaado oo barnaamijkana joogsada waxaa xigi doona barnaamijyo kale oo sidan oo kale ah aynu ugu tartansiin doono fanaaniinta haray ee aan nasiibka u helin ay toddobaadyada socda ay nagala qayb galaan markaas waxaan idin leenahay u diyaar garooba inaad ka mid noqotaan barnaamijyada soo socda sharmarkaye markan dhankii gabdhaha aada iyo aad nadiifay maadaama ay noo soo xushay fanaanka dhanka wiilasha ee axmed zaki waxaan ku qasbanahay inaan daawadayaasha adna usoo xulo fanaanka kale ee dhanka gabdhaha ee barnaamijka in nagala qayb galaya laka xaaj wacees ayaan soo qabanaya weliba heestee ma garanaysaa heeste aniga jecel baa haya aye naf wax jecel naf wax jecel naf waxa jecel il daranaa daawasho ah
واحتعل النقلا أوادس مقلا وركس سدور ربافك إنه كشفته الليلة وأدقا واحتعل النقلا أوادس مقلا وركس صدور ربافك إنو كشفته الليلة لك وأدقا ددنا الروح يتاليو ظرفه وسيين الرميدو درنا يدنا كبدنا ددنا الروح يتاليو ظرفه وسيين الرميدو درنا يدنا كبدنا قفودو دا وقوبة يجعل كنا إيمان درياليو أسطورات كواعنا أرمها كالكعال كنا إن الدنيا عايستيو ويا أرى قفودو دا أسطورات كواعنا نعب فضقا أرادس كلنا دايه السيد مدى وقوبي وقايو أرحن كيس برنا نفوح نعب فضقا أرادس كلنا أيه السيد مدى وقوبي وقايو أرحن كيس برنا قولوا الرينك عاشقو روحي وباري يبدوكم مدنتهي عادي سفرنا كل الرينك عاشقو روحي وباري يبدوكم مدنتهي عادي سفرنا أرمها كالكعالكنا نينا الدنيا هايستيو ويا أرقو فضودا وقوبة جعلكنا إيمان درياليو أسطورات كواعنا أرمها كالكعالكنا إن الدنيا هايستيو ويا أرقو فضودا درياليو أسطورات كواعنا inta aynu ku dhaafno codkii macaanaa ee laki xaji wacsi weliba heesteedii naf wax jecel
شمارك وهس waxay tahay dareen leh heestan aad iyo aad baa loo sameeyay eriyadeeda iyo laxankeeda iyo muuqaalkaba aad bay u jishay fanaanada laki waynu salaamayna laki barnaamijka dhextaalkiisa ayaynu soo gaarnay iyadoo sheekooyin badan ay noo soo direen daawadaasha barnaamijka garsoorka fanka toddobaadkan sheekooyinkeenu helay aad iyo aad sheekooyin baa inoo soo diray adinkaan inoo soo diray balanteenuna waxay ahayd in aan halkan idinkaga soo jeedno sheekooyin badan baa inoo soo dirteen balse ma soo wada qaadan karno hal iyo labo ayaan ka soo qaadanaynaa maadaama waqtiga aad inuu hayo sheekada ugu horeysa loo soo diray nadiif waxa ay tahay sheeko aad u xiiso badan guurkii baa waxa lagu sameeyay waa la siyaasadeeyay wiil iyo gabar baa xiriir dhex maray marka waxaa la rabaa labadooda inay ka wada hadlaan arrimo guur mana la rabo sidii romantic waagi hore looga hadli jiray iyo in looga hadlo waxaa la rabaa qaab siyaasadeysan in la isugu sheego aad iyo aad Soomaalidu waa siyaasad la sheegayo oo kale gabadhii iyo wiilkii kulmay wiilkii hadalkii bilaabay markaas wuxuu yiri walaal weli dawlad ma soo dhistay maxay kala jeedin marka may isaga wuxuu yiri weli walaal dawlad ma soo dhistay gabadhii uu leeyahay macnaheedu waxay tahay ma lagu soo guursaday oo guur ma soo martay gabadhii baa soo booday markaas waxay tiri ها والله معناها هرم سوق ها دولد واصل لسه معناها قول بنصمري ويلكي حورة عي سؤال كله وحيري والله ما لقوا أخوان صدي محل قال جيدا إذا حورة جيدا ما لقوا أخوان صدي معناها أبد ما شيء الرشاكة والسياسة مركز قبل لي بس بدي وحيري مية أخوان سمهرين محيي الميزانية ده بهوس ودعضي معناها بيلكي باير هذا أوكي أوزن الميزانية ده وصل عليها واحد يلا مهل ويلكي بس بدي مركز ولا كدبنا قبل بقى واحد تري موشين بانكا كيني معناها دعوة أوفرينا موشين بانكا كيني إلى وكورون ياي يعني سيدا صان عد أغلبية له كجولستي معناها أقولانش لبضنا دنا بعد أغلبية ده وكلتكنا ويلكي بس بدي وحيري أرمت أنا كنا موشيني كنتا ومعناها لو أنا ها دي اللي تقول صدق أما أنا موشيني كنتا أو نقال أنا هديت ماذا قبل يا سوبر دمر كاسة تير مية وحنكون سمينا يا أديك مدة كردين وقتي كان كودر شيء عجيب وقتي كان كودر يا ومدة كردين بنكون سمينا يا ويلك يا سوبر دو حيري هذا ما هو طا أو مية عضيسي ومعناها ما يقولاتي قبل يا سوبر دو حتري ها وليبا وانكوشوا بيا عدكيجا أنا أيانا كجرب تاجن معناها ديارة واحد ويلك يا سوبر دو أوكي وحيري دورة شذينا سيدابي ولا عيسى معناها مهر كان سيدابي ولا عيا ما هب ديجان مثل 4.5 بالو صفر مبا معناها هب ديجان بوميركين ولا عيا وحول جيدا معناها هب ديجان ما ميركين ولا عيا معناها دنس كي أهل الدين كما كسوق مثال 4.5 ومعناه قد بصيرة أو كلا دميسنا عجيب قبل يا سوبر دمركز تير ماي مرة بقى نيجا 4.5 أو قد بصيرة مرة إيه وحنا ربا هبدي قال معناه وحلا أوجي وضد كونن إيه كسوق البلايان ويلكي بقى وحده يرى أوكي ويا وإنه إن شاء الله وحنا سبنابه وحلي الدورة شاء الله شيك عجيبة يا هاد شيكات يا حسب بدن واحد نص دير عبد الحميد كرساي هذا يوم تسمع عبد الحميد كرساي استغنى وينو سلامينا شيك كله واي نص ديرتنا برنامجك قرصور كاينو برتما كجرنا داود اللي يدو تدبات كان اي ترتميان فنانين تكلا احمد زكي وانكو ادني ضيح دلنوش اي وليبا لك حاجه وعس وانكو ادني فمين تدبات كان اي برنامجك مرتي انو ويهين وجيتك برنامجك waxa uu yahay inaan ogaano fanaan walba fanaanka uu ka taageer badan yahay fanaan u sheeg lana share garay daawadaashada si ay kugu codayaan amaba taageerashada ay uga qayb qaataan inay codayaan barnaamijka garsoorka hadii kale jidka lagaaga tagay barnaamijka garsoorka fanka heesta xigtayna soo qabo heesta xigtay toddobaadkan aynu soo qaadanayno waa codka macaan ee dayaxdal nuurshe iyo waliba heestiisii cabasho daawasho wacan adduunyadu waa ceshiyo caawiya maalmaan badnayn cimrigu waa kooban yahay calafkuna waa mid qorda adduunyadu waa ceshiyo caawiya maalmaan badnayn cimrigu waa kooban yahay calafkuna waa mid qorda
waxaan cabiraa rajada cadceedu markay dhacdo ciduhu ay wada hurdaan alla hurdaan waxaan fadhiyaa cidlada waxaan cabiraa rajada cadceedu markay dhacdo ciduhu ay wada hurdaan alla hurdaan waxaan fadhiyaa cidlada calooshu waxbay itubtaa naftuna ceelbay dhexdii canaanta ka soo dirta erkaan sarareegaya calooshu waxbay itubtaa naftuna ceelbay dhexdii canaanta ka soo dirta erkaan sarareegaya cidlaan wehel moodaya canan biyo moodaya cishaan duhur moodaya caddaan guxuu moodaya cidlaan wehel moodaya canan biyo moodaya cishaan duhur moodaya caddaan guxuu moodaya cabashadu keed miyaa ceeryaamadu roob miyaa colaadu heshiis miyaa alla miyaa caqligu waa isdiidan yahay cabashadu keed miyaa ceeryaamadu roob miyaa colaadu heshiis miyaa alla miyaa isdiidan yahay calooshu waxbay itubtaa naftuna ceelbay dhexdii canaanta ka soo dirta erkaan sarareegaya waxaan cabiraa rajada cadceedu markay dhacdo ciduhu ay wada hurdaan cidahaas waa cidahe meelaha meeshuu joogo ka hadlaadaya okay waayahay barnaamijka garsoorka fanka qaybihiisa dambe ayaan kusii siqeynaa waxaad dhegaysanayseen oo aad daawanayseen heestii cabasha iyo weliba codkii macaanaa ee dayaxdal nuurshe wuxuuna ka mid ahaa 4 fanaan ee toddobaadkan barnaamijka garsoorka martida inoogu ahaa sharmarka qaybihii dambe barnaamijka ayaynu kusii siqeynaa iyadoo gabagabada barnaamijku ay soo dhowdahay aynu markana soo qaadana sheekadii labaad ee toddobaadkan ay noo soo direen qaar ka mid ah daawadayaasha barnaamijka si toosa ugu tixan waxaa la isla gaari doonaa xili sheekooyinka aad noo soo wada dirtaan oo dhan aan idin akhrin doono laakiin hadda waan soo kokoobeynaa waqtiga aad inoo haya adinkana noo sabra oo sidaa noo daawada sheekada xigta aan soo qabanaya waxa ay tahay nadiif ay daawada barnaamijka ku xiran baa wuxuu noo soo diray sheeko aad u xiiso badnayd magaciisa waxaa la yidhahdaa maxamed cabdiqaadir waxa uuna joogaa sida uu kusoo qoray magaalada muqdisho uu barnaamijka ka daawada wuxuu yidhi nin baa hadda ka hor wuxuu soo gacanta u taagay gaari hoomi ah
markaasa gaariga hoomeyda ninka istaajinayo xoogaa way soo qashimiyey macnaheedu macnaa balowdoo soo isticmaalay معناها بلوده ilaahi wuu ku roon yahay markaasa wuxuu sameeyey gacanta inta sidaa ugu haatiyey gaariga markuu istaagay oo shirka usoo fadhiistay hoomeyda أي wuxuu yidhi ninka darawalka meeshuu saareen waa taqaanaa baabuurta xamar markaasuu yidhi ma xasuusataa أي ninka darawalka uu nahay markaasuu yidhi may ومحسوس gaarigiina uu wadaa wuxuu yidhi si fiican u fikir isoo saar ninka darawalka ahaa wuu mashquulay maskaxduu ka shaqaysiiyey waa keeni waay معناها هو يستقف qofuu yaqaano camal isaga dhigay markaasuu ninka darawalka wuxuu ugu celiyey warniyaho iska xirida isoo xasuuso ninka darawalka inta xishooda wuxuu yidhi talow Wuu mashquuliyey. ma xidid baa waalid miyuu ku yahay ma waalida u tahay ma deris ba ahaan jirteen ma isku dugsi ba ahaydeen ninkaan sidaan kuu mashquulinahay talow yuu yahay maanta waa ceebeysan tahay ninka daroogada isticmaala balowdeysan oo balowdii soo isticmaalay shirka hore uu saaran yahay markaasuu cabaar kadib wuxuu leeyahay ma ii weysan tahay ما يحسوس ninka darawalka gaarigooda murugsan yahay marka dambe uu yidhi waa ceebeysanahay اسكو كاي شيء isku keshay أي wuxuu yidhi aniga ahaa hadda dhow sooma ahayn ninka gacanta kuu taagaya ilowshada إلا شنو ذا معناها ilowsha dhawida oo hadda hirtaan aba gacanta ku taagaya goormaa ilowday ninka darawalka imtixaana qoray deg gaariga kadeg waayahay waxaad daawanaysaan telefishinka qaranka soomaaliya barnaamijkuna waa برنامج كقرصور كفنكة sheekooyin sidaas oo kale noo soo dira annagana waan idinla wadaagi doonaa markana waxaanu soo gaarnay xilligii aynu idiin soo gudbi jirnay natiijada toddobaadkii hore fanaaniintii nagala qayb galay barnaamijka garsoorka iyadoo halkan ay aalaaba inooga soo jeediso xoriya cabdiqaadir shaah xoriya soo dhawow aad baad mahadsantihiin nadiifa iyo sharmaake daawadayaal ku soo dhawaada natiijadii toddobaadkii lasoo dhaafay fanaaniintii aynu tartarsiinay sida ay ugu codeeyeen taageerayaashooda guud ahaan dadka wada codeeya waxay noqdeen 518 qof haddaan idin kala qeexa siday fanaaniinta u kala heleen maadaama 2 gabdhood iyo 2 wiil aanu tartarsiinay asbuucii lasoo dhaafay qofka ugu horeeya qaaliladan waxay heshay 122 cod halka cabdiwahaab booska u helay 123 cod faysal hawaase ayaa isagu helay 132 cod halka sacdiya simanna ay heshay 141 cod wareegga labaad ee natiijada toddobaadkan fanaaniinta afartii ahaa waxaa ku soo baxay sacdiya siman iyo faysal hawaase intaasi aynu kaga gudubno natiijadii toddobaadkii lasoo dhaafay afartii fanaan aynu tartansiinay waxaan dib idin kugu celinayaa nadiifo iyo sharmaaka si ay dib noogu sii wadaan qaybaha kale ee barnaamijka aad iyo aad baad u mahadsan tahay xoriya barnaamijka haddii waa ujeeda natiijada waa lagu dhawaaqay yaa baxay barnaamijka toddobaadka hore waxaanu tartarsiinay faysal hawaasi iyo weli cabdiwahaab booska oo iyagu isku aadanaa iyo weliba qaaliladan iyo sacdiye siman iyadoo toddobaadkana ay soo baxeen oo wareegga labaad ay usoo gudbeen fanaaniinta kale ah faysal hawaase iyo weliba sacdiye siman waa sidaa sheegtay waana sidaas labada kale fanaan ee hartayna barnaamijka way ka hareen waa cabdiwahaab booska iyo qaaliladan heesahoodana aad baa loo jecel yahay aad baan laftirkeena u danaynayo laakiin sharmaanku haddii la tartan micnaheedu ma ahan in la soo laba dhagax dii la isku dhufto mid baa jabaya Micnaheedu darina maahan- laba ruux kama wada qosliso fanaanida qaaliladan iyo fanaanka cabdiwahaab booska waxaan leenahay mac salaamo fanaaniinta kale ah faysal xawaase iyo iyo weliba weliba sacdiye siman waxaanu soo leenahay dhawaado wareegga labaad baa laydinku sugaya waxaa idinkaga sii horeeya qadarkeyo iyo weliba nasteexin nasteexindha gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay markana waxaanu soo qaadanaynaa fanaanadii ugu dambeysay waana fanaanada barnaamijkeenan ugu dambeysay waa faadamiina heeskeeda weliba ciyaal xamar oo ah heesaheeda kuwa loogu jecel yahay ayay kamid tahay farsamo yaqaankii intuusan heesta inoo soo saarin ciyaal xamar ma tahay aniga ah maxaa kalaba muqdisho ku dhashay ka dhankee shibis shibis ana mi wiilka weydiinays tagta shibis ma tagta leex sharmarko waxay la tahay dadka inta ugu badan muqdisho marka qurbaha la yimid qof waliba muqdisho ka yimid meel kaloo laga imaaday ilaa ma jirte ama kuwaas ka mid tahay sharmarko maya aniga xaafadeyda haddii la tago anoo reer siigaala ah barmuuda beerta raaxada degmada hodan haddii la tago oo siigaalada naftirka iska daa dadka oo la weydiiy siigaalo sharmaaka ma taqaan hallo siigaala hadleeso haadhees ama laga aqoon waa inoo kulanka dambe okay heeska ciyaal xamar nafada ahaada ku iimaan qaba ubadku dhalo uliya diirkeedaha ana duunaarsan lahaa arwaax badno asal suubano madaanada kaa ishaataye arwaax badno asal suubano madaanada kaa ishaataye orax waa dhacdaayobe awaar waa baxdaa imaan suganaa la deegsadaay orax waa dhacdaayobe awaar waa baxdaa imaan suganaa la deegsadaay reeray u
ciyaal iyo ciyaal xamaraane uma waa ku tuuga manoo dido waan xaqiiqsaday ciyaal xamar inaynu nahay aad iyo aad heeskii heer abiyaale iyo ciyaal xamar adha adeeli taqaanaa baadmiin waynu salaameynaa barnaamijka ayay qayb ka ahayd barnaamijka waxaan ku celinaynaa 4 fanaan ee toddobaadkan tartamaysa waa faadmiine iyo laki oo isku aadan iyo waliba axmed zaki iyo dayaxdal nurshe oo isku aadan haddaba daawade fanaanka taageerto u coday gabagabada barnaamijkan isla soo gaarnay barnaamijka waxaan uga mahad celinaynaa oo gacan weyn inaga siiyay saaxiibada kale ah MJ Taajir Cabuudi Tahliil Aadan iyo waliba Xuriya Cabdiqaadir Sheekh Cali Yaasir Maxamed Daahir Yaaska Filmis sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa Zakariya Xaashi oo gacan weyn ka geystay habka codinta barnaamijka oo ah hab caalami ah tan iyo intaynu dib ugu kulmi doono barnaamijka garsoorka fanka toddobaadka dambe haddii Allah awoodali uu ogolaado waxaynu idinkaga tegaynaa bahda telefishinka qaranka dalka Finland oo idin leh barnaamijka garsoorka fanka garsoorka fanka garsoorka fanka